الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه تنزيله أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. براarجin kadib Rabbi subxaanahu watacaala ayaa mahad u sugnaatay, allahaasoo nagu manaystay nicmada ugu weyn oo ah diinta islaamka. in tacudu nicmat allahi laa tuxsuuha, haddaan dhahno nicmooyinka Rabbi subxaanahu watacaala aan xisaabno ma noqonaysa mid aan awoodno. kelimada maanta aan uga hadlayno waxaa weeyaan waa madrasadeeni nuurul islaam. Rabbi subxaanahu watacaala ha barakeeyo, barakada maanta ay ku taagan tahay oo ay ka dambeyso waalidiinteenii oo isku xiran oo hal family ah oo madrasatu nuurul islaam. madrasatu nuurul islaam khaasatan anigoo ah ustaad Aadam Axmed Yuusuf, waxaanu soo bilaabnay oo waalidiinta fadligooda aan kusoo bilaabnay, waalidiinta garab istaagooda aan kusoo bilaabnay 2016 oo maantana ay tahay 2019 oo sii dhammaanayaba 2020 hadda la gali rabo. idan intaasoo dhan waxay u sugnaatay mahad khaasatan waalidiinta oo dhan, khaasatan amiirada oo yani dumarka ustaada xabiiba casmaan aadam iyo madrasada odayaasheedii oo madaxa u yahay ibraahim abdiraxmaan iyo umu salma, umu kifaax iyo waalidiin fara badan. rabbi subxaanahu watacaala ha ka waalmariyo garab istaag ay soo garab istaageen madrasatu nuurul islaam. idan waalidiinta dhammaantood, hal waalid laba waalid maha, dhammaantood madrasada garab istaag weyn ayay tuseen oo diinta islaamku way u tabaruceen, wixii looga baahnaa maal iyo xoog way geliyeen dhammaantoodba. khaasatan waalidiintii ugu horeysay madrasada waxaan leenahay baaraka allahu fiikum, ilaaha idin barakeeyo, ubadkiina ilaah idinka dhiga kuwii dadkooda iyo diintooda kor u qaada, ilaahayna ha idinku xafiido, fadligoodana ilaah idinku geliyo jannada. yani ilaah ha ka dhigo waalidiin oo caruur oo waalidkooda u duceeya berita qiyaamaha markay dhintaan. waalidiinta markay dhintaan waxa ilaah ha ka dhigo caruurtiina kuwa idiin soo duceeyo. intaas markaa kasoo laabano, madrasada nuurul islaam 2016 waxay lahayd arday 220 ah, maantana ay ku fadhiso taqriiban 200 wax la jira arday ah. waa mahad Rabbi subxaanahu watacaala iyo ikhlaaskii aan kusii wadnay madrasatu nuurul islaam. madrasatu nuurul islaam 2016 maysan awoodin in arday qaar ay qur-aanka ay ku dhameeyaan. waa 16 arday, waa 17 qur-aan ay arday noo dhameysay, 18 arday 3 ay qur-aanka noo dhameysay, 19 arday 6 ay qur-aanka noo dhameysay. Rabbi subxaanahu watacaala wuxuu nagu manaystay in aan helno guddi isku xiran, in aan helno dad diyaar u ah inay ka miro dhaliyaan diinta islaamka. wax kale uma taagnin ilaa li'alayha inaan kalimada Rabbi subxaanahu watacaala aan kor usoo qaadno. madrasatu nuurul islaam 16kii 17kii 18kii historigeedaan ka hadlayna haddaan dhahno waa story dheer. waa madraso juhdigeedii oo zaa'id soo ahaa maanta meesha aan taaganahay ka macnaynayso. khaasatan mahad celin haddaa la dhaho waxay u sugnaanaysaa waalidiinta oo dhan iyo madrasatu nuurul islaam oo isku daysay inay sameyso wixii awoodeeda ah. 16kii waa ka warqabtaan xafiis dhan maanan la helin, 17kii xafiis ayaan la yeelanay, 18kii xafiis labaadaan yeelanay oo xafiiskii koowaad aan ka guurnay, xafiis weyn aan soo guurnay oo fasalo qaar ayaan helnay. 19kii waa arkaysaan xafiiska hadda aan ku jirno quruxdiisa arkaysaan waalidiinta madrasatu nuurul islaam ka dambeysay. waxaan leenahay Rabbi subxaanahu watacaala ha u qurxiyo qabrigoodii siday noogu qurxeen madrasadeeni, ilaah ha u nuuriyo qabriyadoodii siday u nuuriyeen madrasatu nuurul islaam. khaasatan qolkan iyo qolka naga dambeeyay lacagta gash madaarista ma yani waalidiintu ay ka warqabaan, waa garab istaag ay garab istaageen. anaga wax aan samayn karno ma lahan ilaa haddaan isku xirano maahan. Rabbi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay, nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kullukum mas'uul wa kullukum mas'uul an ra'iyatikum. waxaa mas-uul, kulligiin mas-uuliin aad tihiin, waxaana mas-uuliin ka tihiin waxaa idin raacsan. khaasatan waalidiinta caruurtooda mas-uuliyadooda ay qaadeen ilaa madrasada mas-uuliyadooda ay qaadeen.
annagana mas-uuliyaddii shalay aan arday waalidiintii aan ka qaadnay ballantii aan la galnay falilahi alxamdu washukr waan kasoo saarnay. macnaheeda ma ahan in meesha wax kale aan u joogno. waxaan u joogno waxaa weeyaan keli in anagana beri qiyaame yani beri markaan geeriyoono inay noo noqoto camal yuntafac bih, waalidiintan ay u noqdaan ubadkoodii waladun saalix yadcuu lah, in ay idiin noqdaan caruur beri idiin soo duceynayan, anagana ay noo noqdaan kuwa camal yani cilmiga aan barahayno camalkooda beri nagu anfacaan oo yani ay noo soo duceeyaan anaga xitaa mise qiyaamaha rabbi subxaana watacaala suu nabi maxamed sala allahu alay slam ku sheegay uu leeyahay saddexda shay qofku markuu dhinto idaa maata ibnu aadam inqata camalu ilaa min halaatin sadaqatun jaariya wa camalu yuntafac bihi wa waladun saalix. mida labaada waxa ay tahay waxay kamid tahay saddexdaasi kamid ah dheheyso macalinkii inuu kamid yahay mise ashyaakda naftarkoodii waa caruurtooda waxay soo bareen inay u noqdo camal yuntafac bihi. idan madraseen maanta maasha allah meeshay joogto arkaysa inaa computer aan leenahay, in yani imtixaanaad aan bilownay, tartamo fara badan aan soo geli jirnay ilaa haddana waa inoo sii socdaan. tartamaha dhinacooda way naga dhisan yihiin falilahi alxamdu washukr. madrasada suwacaani